بيدبي بيدبي جناي بيدبي بدكي أوليدوا برنكي الماضوا فكرتي مسكدوا بيدبي waan ku dhawahay saaxib maxamed serjito kamal waxaad noogu warbixisaa waxaad tahay agaasimaha beerta janawke waxaad noogu warbixisaa xaaladda beerta iyo sida ay dhalinyarada markay ay soo booqdaan ay ugu qayb qaadanayaan maasha allah maxamed serjito saaxib macaane beertan waa beer maasha allah loo soo damaashaa tago dhalinyaro badan ay imaadaan dad fara badan family guruub loo imaado mar walbo dadka waan soo dhaweynaa waxaa yimaada marmarka qaar aroosyaal ah dalxiiska baadhow geesaa loogu imaadaa maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay dadkaas beertan waxay isugu jirtaa qaybo kala duwan sida hadda garoon kubadda cagta lagu ciyaaro waxaa kaleeto iskugu jirtaa meel kafateri ama shaax oo kaleeto lagu cabo sidoo kale dhalinyarada inta badan markay imaadaan sawirro kala duwan ay ku dilaan sidoo kale aad ay u qurux badanta waxay leedahay qaybo kala duwan ee gudaha beerta markaad sii dhex gashid ka waran ma waxaad isdhihi kartaa meelo kale oo ka duwan meelahan oo kale miyaad rajaynaysaan inaad samaysaan mise hamigeen iyo fikirkeen wuxuu ka yahay beertan oo kale oo maasha allah maxamedow maasha allah waa beerta inaad si weynaynaa rabnaa dhinacan kale waxaa ku yaalo qayb kale oo noo bannaan oo aan rabno inaan ku sameyno barnaamijyaal fara badan oo baydhow inaysan dadkeeda meel kale aysan u dalxiisin taganaa rabnaa insha allah sidii baydhow jana ay u kaafin lahayd janaawkay beerteedana ay u kaafin lahayd aan falkeeda ku jirnaa insha allah waa barnaamijyaal fara badan aan soo wadnaa niyow waxaan arkaa garoomo kubadda cagta lagu ciyaaro ku dhegan beerta dhinaceeda garoomadaas xilliyada habeenkii oo keli miyaa lagu ciyaaraa mise waqti walba waa lagu ciyaari karaa garoomada waa garoomo maasha allah VIP ah salaxan ugu yaraan shaqadiisa waxay bilaabataa 9 saac ilaa habeenkii ilaa 6 saac 7 saac shaqada way noo socotaa marka beertan sidaas ayaan ka rajeynaa insha allah haddii ilaa 24 hour inaan u shaqeyno aan dadka diyaar u nahay marka beertan xilli walbo waa qof walbo imaado waxaan jeclahay inuu sidii uu jecel yahay uu ka heli doono haddii ilaa yiraahdo marka waa waxyaalo badan oo soo wadnaa sidaas daraaddeed insha allah garoonka caalamiga ah ujeedid tartan wax walba lagu qabtaa habeenkii haddaa aragtid waxaa u malaysaa meeshan baydhow maahanba waa waddan kale u malaysaa waa meel dhalinyaro inta badan aad ay ugu caweyso badanaa inta xataa beerta sidoo kale waa imaadaan guruub ay u imaadaan dadka ay ku sheekaystaan habeenkii ilaa 6 saac 5 saac ay iska joogaan meel oo nabadeed waaye dadka soo galaya beertan imaanaya oo doonaya inay sawirro ay ku galaan ama inay shaah ay ku cabaan amaba inay ku xasaawaan ay ku sheekaystaan ma waxaa jira shuruudo dadka soo marayaan mise qof walba doonaya inuu beerta galo uu isugu yimaada beertan waa maasha allah waa shuruudaha la soo marayaan shuruudo kale ma ahan shuruudo amniyeed leh waa mooyaane shuruudo kale ma jiraan amnigana si fiican ayuu inoogu sugan yahay marka waa shuruudo badan ma jiraan maadaama aad sheegtay meeshan inay imaanayaan dad walbo aysan u go'neen dhalinyarada keliya oo qof walbo uu imaado madaxa imaada bal ka waran xagga amnigeeda iyo qaabka ee markaa amnigeeda istaraatiijigeeda amniga waa maasha allah laba qayb u taala qayb hore soo maray qayb labaad soo maraysa markaas kadib u soo gudbaysaa beerta marka waxaan jeclahay amnigeeda waa 100% inuu hagaagsan yahay hadda koor dhibaato kuma aan arag ku rajo weyntiin inaad samaysiin meelo kala duwan oo sida hadda beertan idinka aad samayso isugu jirta goob cafeteria oo shaaha kaleeto lagu cabo sidoo kale garoomo lagu ciyaaro kubadda cagta xilliyada habeenkii iyo maalintii oo kale sidoo kale lagu ciyaaro waxa kaleeto ay leedahay sida aan jeclahay qayb kale oo laga sameeyay sida alwaaxida dabaq qoreeta qaybtaas kale waa qayb oo VIP ah meeshan waxa laga sameeyay rabaa ilaahay raado waterfallskan oo jeedid qaybta waa la xiraa insha allah meel oo TIB ayaa laga sameynaa oo trusted important people dadka oo macquulka ah ay soo galayaan qaybtaasna waa qayb oo hool oo aroosyaal loogu talagalay waaye marka insha allah waa barnaamijyaalka aan soo wadno inay ilaa ay caarifada insha allah inay reebaydhow ay kaafin doonto umalana beerta janaawka insha allah waxyaalaha aan soo wadno inay qancin doonaan
waxaan arkaa fikrado casriya ay ka mid tahay hadda sida fikirkan oo kale biyaha waxay u socdaan qaab qurux badan xitaa meelaha qaar markaad tagtid magaalada caasimadda ee Muqdisho markaad tagtid xitaa lagama helayo fikradahan inta badan fikradahana ma kuwa idinkaga yimaadaan mise waa kale oo qaab kale idinka aad u wadaagteen fikirkan waa fikir ani aan wato waaye maasha Allah anaga leeyahay ana wato fikir badan oo ka duwan oo naqshadaha ka sii wanaagsan oo soo wada hadii Ilaahay raado marka fikir ka fiican ajrab insha Allah soo wadna meeshan maxay ka sameysantay waxaan u jeedaa inay sameyskeeda caadiga u yahay dhagax waxaan dareemayaa inuu leer uu ku jiro kale leerkan color uu wato kan hoose iyo midka karana inaysan isku color aysan hayn oo aad iyo aad ay u kala duwan yihiin bal korontada iyo biyahana sidaan ku naqiinay aad iyo aad ayaa loo kala ilaaliyaa oo waxyaabaha isku daran sida baazinka iyo dabka kale bal maskaxdana qaabkan adiga noo sharaxaya sida loogu sameeyo blanka maskaxdan hadii aan ku sharaxo waa korontada wixii kulli hoos la mariyay macluumaadkii isma gaarayaan biyaha balse dadku waxay u maleeyaan inay gaarayaan marka waa isku dareen waa la ogyahay balse waa la kala ilaaliyay waa engineer ah sax waa laga wada shaqeeyay inkastoo naqshadii wili ay dhiman tahay sidaan kuma koobno sharaxaad kala oo sii dhiman biyahan oo ranjeenaya oo ringil marnaa jir ayoo nooc ay noqonayaan sidan le kuma sidan aanaysa waa aas-aaskii leeyahay wali hadda waxaan dareemayaa inay shaqo badan ay u harsan tahay shaqo badan oo harsan dadka inta badan waxay aad u maleeyaan inay meesha u ekeel tahay balse wili bay dhiman tahay baashan biyahan marka ma biyo baxaya oo meel kale ku dhacay mise waa biyo soo noqonay biyahan waa biyo inta badan soo noqonay balse dadku waxay u maleeyaan biyo oo gadaal macaylka qodan inta barnaamijka waxaas dadka inta badan waxyaabaha ay la yaabka ma daawadaasha is weydiinayaan waxay tahay biyahan qaabkay korontada ugu jirto qof ku weydiinayso waa arkaysaa balse waa biyo ku inba ku soo laabanayo waxaan dareemayaa inay tahay sameyskeeda kuwa dhagax inuu yahay sameyskeeda dhagax ilaa iyo meeqa macluumaad ay ka kooban yihiin macluumaadkan sidaan qurux badan oo la isku keenay wallahi macluumaadkan sidaan qurux badan ilaa ay muddo hal bil aan ku sameeyay ilaa iyo ismaada guud waxay qaadanaysaa muddo 6 bilood ah oo ayada oo meeshii laga rabay ay ku imaanayso haddana 3 bil 4 bil kala ay siyaarsan balse muddadan kooban inaan ku sii dhameeyaan rabaa insha Allah waxaad noogu warbixisaa qaabka blamkan korontada sida loo geliyay iyo haddana biyahana loogu sameeyay ay isu dul marayaan ma gacantaada ku sameysay mise fikirka oo kaliya baad lahayd fikirkan la naqshad engineerka askala maxaad ugu baaqaysaa bulshada kale ee Soomaaliyeed oo sida badan Soomaaliyeed waxa uu baaqayaa ku nool magaalada Baydhabo iyo qaybaha kale ee dalka banaankiisa ama dibadiisa maxaad ugu baaqaysaa maanta waxa uu baaqayaa maanta inay haystaan wadan ku filan beerta jinaawka inay tahay beer oo Baydhabo ay kaafin karto ma sha Allah ay soo dalxiistay karaan dadkeeda maalintii ciid 5 maalmood ugu horeysay ma sha Allah shaqadeena way fiicneed kala baro Baydhabo inta ay maadeen ariid ay noqotay balse insha Allah waa sii weynaynaa hadii la yiraahdo fikirkiinu ma qabtiin inaad sameeysiin meelo kale oo ka duwan meeshan oo kale sida meelo kale oo ka duwan oo waxa rabaa inaad sameeyno baalaha wareeganayo oo nalalka lahaa oo dadka ay fuulayaan Soomaaliya oo korontada soo ku shaqeyso si amal inaad sameeyno rabnaa waxa kale oo jira inaad sameeyno doomanka oo ayagana ilmaha yararka la saarayo oo soconayaan ayagana oo diinimada waxay ku xireen baawarka u soconayaan sameeyno rabnaa barnaamijyo fara badan oo dhiman meel qayb gadaal aan sameeyno rabno naqshado fara badan oo cajiib aan soo wadnaa hadii la yiraahdo Baydhabo